السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawow daawada mar kale. waxaan kuu sheegi doonaa 6 qodob oo haddii aad isku aragto calaamadahaas kaadi heestaadu waxaa ka jira infection kaadi heesta ka jiro waxaa loo yaqaanaa UTI ama urinary tract infection ku dhaco kaadi heesta marka sideeda markuu infectionku ku dhaco waxaa kusoo badanayo ama kusoo degdego calaamado badan kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin 6 calaamadood oo aan kuu tirin doono insha Allah. kow haddii aad isku aragto calaamadda in maxaa la dhahaa kaadidaadu ay ku dhibto xilliga aad kaadinayso ama maxaa la dhahaa xanuun aad dareemto xilliga aad kaadinayso waxaa jiro infection ku dhaca kaadi heestaada. qodobka labaad wuxuu yahay kaadida oo shiirkeeda isbedelo ama urta kaadida oo isbedesho ama kaadidii oo u ekaato ceeryaamo. iyadana haddii aad calaamadaas isku aragto waxay maxaa la dhahaa jiro infection ama xitaa haddii aad kaadidaada ku aragto waxyaaba u malaysid daruur camal midabkeedu uu noqdo UTI ayaa jiro, urinary tract infection ayaa jiro. midda saddexaad waxay tahay oo kaadida aad maxaa la dhahaa markii aad kaadi heestaadu infection markuu jiro aad dareemayso xanuun xagga ku yimaado belfiga ama miskaha oo xanuun ku yimaado ama maxaa la dhahaa uur ku jirta ama uusleyda oo xanuun ku yimaado xubnaha uur ku jirta xanuun aad ka dareento sida kelyihii maxaa la dhahaa iyo maxaa la dhahaa gumaarka iyo riximka iyo maxaa la dhahaa abdominalkii. haddii intaas aad xanuun ka dareento ama belfigii xanuun aad ka dareento iyadana waxaa jiro infection ayaa jiro oo kaadi heesta ah ama UTI ayaa jiro, urinary tract infection. qodobka maxaa la dhahaa afraad wuxuu yahay qandho oo meel dhexe ah, moderate fever ama qandho oo waxaa waaye meel dhexe aad dareemaysaa ama waxaa loo yaqaano warm ayaa dareemaysaa ama diiranaan oo jirkaaga temperature-kaaga xoogaa yara kacsan yahay. iyadana markaas waxaa laga yaabaa inuu jiro UTI ama urinary tract infection. sidoo kale jarays waqtiyada qaar ah weliba waqtiyada qabowga haddii aad isku aragto waa qodobka shanaad. iyadana UTI ayaa jiro, urinary tract infection ayaa jiro, kaadi heestaado waxaa jiro infection ayaa jiro. sidaa darteed mar walbo oo aad jarays dareento weliba markii qabow yar uu jiro ama xilliyada roobabka ay jiraan oo kale oo laakiin roob weyn oo aad la jarayso uusan da'aynin waxaa laga yaabaa haddii wax yar aad qabow jirkaagu dareemabo ama temperature-kaagu uu hooseeyabo inaad jarays dareento ayaa dhici karto. sidaa darteed waxaa laga yaabaa calaamadaha UTI-ga ama urinary tract infection-ki mid kamid ah weeye, waxaa laga yaabaa inaad qabto infection-kaas. qodobka u dambeeyo oo ah midka 6aad waxaa waaye markii aad yacni samaynayso ejaculationka haddii aad xaas leedahay nin ahaw ama naag ahaw xilliga galmada oo xanuun la dareemo waxaa waaye pain during sex. qofka markuu jimaaca samaynayo inuu xanuun dareemo, xanuunkaas oo yacni sabab uu yahay infection ka jiro kaadi heesta ama urinary tract infection. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo 6dii qodob oo ku saabsaneed UTI-ga ama urinary tract infection calaamadaha lagu garan karo. haddii 6daas qodob aan soo tiriyey mid kamid ah aad qabto waxaa jirto ama infection ka jira kaadi heestaada fadlan haddii muuqaalkan kusoo gaaro la wadaag saaxiibada. haddii aad naga daawanayso YouTube ama Facebook-na sii faafi oo sii share garay channel-keena. haddii aad ku cusub tahayna please waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.